Assalaamu calaykum. Waa Mubaarak Maxamuud Saleebaan. Maanta waxaynu ka hadli doonaa dagaaladii u dhaxeeyay Muslimiinta iyo Kiristaankii soo qamaamayay. Haddaba sanadkii 539 Imaadudiin Sanki wuxuu Kiristaankii kala soo wareegay magaalada Raha iyo qalcado badan oo ku yaalay jasiiradda. Ciidan badan buuna ka laayay, hanti badanna wuu ka soo bililaqaystay. Haddaba markii la gaadhay sanadkii 541 waxaa la dilay Amiir Imaadudiin Sanki oo qaybo badan oo ka mid ah Ciraaq iyo qaybo Shaam ka mid ah muddo maamulayay, oo ahaa nin wanaagsan oo gaaladii soo qamaamaysay wax badan la jihaaday oo muslimiinta ka waabiyay, oo wuxuu ahaa geesi aan gaban oo shacabkiisa u roon oo si fiican ula dhaqma. Waxa gaadmo ku dilay qaar bidoodkiisii ka mid ah, sababta ay u dileen lama soo sheegin. Imaadudiin Sanki waxaa la sheegaa inuu ahaa ninkii markii u horeysay ciidanka gurmadka u diray Masar, kadib markii ay gaaladii Kiristaanka ahaa meelo badan ka qabsadeen. Ciidankaas waxaa ka mid ahaa Saalixudiin al-Ayuubi, oo adeerkii ayaa ciidankaas madax ka ahaa oo hogaaminayay. Ciidankaasi wuxuu ku guuleystay inay Masar ka xoreeyaan gaaladii ku soo duushay. Haddaba markii la gaadhay sanadkii 549 haddaba boqor Maxamuud oo lagu naanaysi jiray Nuuraddiin binu Sanki oo aabihii jagadii uga hadhay, wuxuu gugaas taladii Dimashq kala soo wareegay amiirkii haystay ee la odhan jiray Abaaq binu Maxamed, kadib markii uu maamulkii dowladda iyo shacabkiiba ku ciyaaray oo taladiisii daciiftay, iyadoo shacabkii ku kaceen oo qalcaddii uu ku jiray dhowr jeer go'doomiyeen. Dadkuna waxay habeen iyo maalinba Alle ka baryayeen inuu kaas Alle ka dulqaado oo boqor Nuuraddiin Maxamuud binu Sanki ugu soo bedelo. Isagaana ku soo duulay oo taladii kala wareegay, shacabkiina way soo dhaweeyeen. Waxaana soo dedejiyay inuu Suldaan Maxamuud talada Dimashq la wareego. Gaaladii soo qamaamaysay ayaa u soo dhawaatay oo magaalada Casqalaan oo aan ka fogeyn gacanta ku dhigtay. Ninkii waqtigaa Dimashq haystayna wuxuu ahaa nin wax matare ah oo aan danka lahayn waxa dhacaya. Haddaba boqor Maxamuud binu Sanki oo sidii aabihii geesi ahaa, wuxuu ka cadhooday duulaanka cadowga dhulkii Islaamka soo galay. Sidaa daraaddeed toos uma uusan weerari karayn, oo maamulka Dimashq baa ka sokeeyay oo caqabad ku ahaa. Sidaa daraaddeed buu go'aansaday inuu talada kala wareego. Kadibna wuxuu iska hormariyay abaanduule Asadudiin Sherko oo ahaa Saalixudiin adeerkii oo guuto ciidan ah wata. Dabadeedna isagoo ciidan xoog la wata baa ka daba tegay oo maamulkii Dimashq xoog kula wareegay. Haddaba maamulihii haystayna wuxuu u dhiibay Ximis oo iyadu markaas jiidda cadowga ka fogay. Markaasuu shacabka ka joojiyay cashuurtii laga qaadi jiray. Shacabkiina aad ayay ugu farxeen, wayna u duceeyeen. Haddaba maamulayaashii Kiristaanka ahaa ee dhulkaas ka dhowaana bogaadin bay u soo direen, way soo dhaweeyeen iyagoo iska sasabaya oo ka baqaya. Haddaba markii la gaadhay sanadkii 555 waxaa geeriyooday khaliifadii Muqtadi binu Amiirullah. Waqtiga uu geeriyoodayna wuxuu ahaa 66 jir. Khaliifadii waxaa haddaba xilka uga hadhay wiilkiisii Yuusuf oo naanaysta jagada looga dhigay Mustajid Billaah. Haddaba markii la gaadhay sanadkii 562 waxaa Masar ku soo duulay ciidamo cartamaya oo Kiristaankii soo qamaamayay ka mid ah, kuwaasoo si toosa ugu talagalay inay Masar oo dhan qabsadaan oo Shaam iyo Masar isku darsadaan. Waxaana caawinayay nin qaa'in ahaa oo boqorkii Faadumiyiinta wasiir u ahaa, wuxuuna ahaa wasiirka fulinta, wuxuuna ahaa ninka gacanta ku haya awoodda ciidanka. Sidoo kale wuxuu ahaa nin munaafiq ahaa oo muslimiinta iyo islaamkaba cadow u ah. Ninkaas iyo ciidankiisa iyo maamulkiisa in badan oo ka mid ahaa baa hoosta kaga xidhnaa gaalada oo la heshiiyey, oo markii ay dhul ballaadhan qabsadaan bay waxay kula heshiiyeen inay siinayaan malaayiin diinaar oo ay dadka xoog uga soo ururinayaan oo iyaguna wax ka qaadanayaan. Markii ay doonaan bayna gaalada ku odhan jireen laabta oo mar kale soo noqda, siiba markii ay ciidanka Shaam soo gurmadeen. Waayo wuxuu ka baqayay ciidanka Shaam oo ahaa dowlad sunni ah. Waxaa haddaba Masar soo gaadhay gurmad Shaam laga soo diray. Ciidankaas gurmadka ah waxaa abaanduule u ahaa oo hogaaminayay Asadudiin Sherko binu Shaazi oo ahaa Saalixudiin al-Ayuubi adeerkii.
haddaba saalixuddiin saraakiisha la socotay buu ka mid ahaa. dabadeedna ciidankaasi gadaal bay uga laabteen kadib markii iskandariya lagu go'doomiyey oo ay masaaridii iyo gaaladii isugu tageen oo lagu khasbay inay dalka ka baxaan. ugu dambayn markii uu asadudiin arkay inay gaaladii doonayaan inay Masar la wareegaan iyagoo ka faa'iideysanaya wasiir Shaawiir oo khaa'in ahaa, ayuu boqor Nuuraddiin ka codsaday inuu fasaxo inuu Masar badbaadiyo, wuuna u oggolaaday. wuxuuna kaxaystay ciidan saalixuddiin laftarkiisu ka mid yahay, waxayna Shaam ka hayaabeen bishii Rabiicul Awwal ee sanadkaas. haddaba wasiirkii Shaawiir markii uu maqlay ciidankii Shaam inay soo duuleen ayuu gaaladii fariin u diray oo ka codsaday inay ciidan xoog leh soo diraan oo Masar ka difaacdaan reer Shaam. markaasay meel walba ka soo direen ciidan deegaanyo ah. haddaba ninkii libaaxa ahaa ee Asadudiin markii uu maqlay inay gaaladii soo dirtay ciidan lixaad leh oo ay meel walba ka soo gurmadeen isagoo watay 1000 fardooley ah oo keliya, ayuu la tashaday saraakiishii la socotay oo ka hooseysay. dhammaantoodna waxay kula taliyeen inuu ciidanka gadaal u celiyo. waxa taas khilaafay sarkaal la odhan jiray Sharafudiin oo isagu yidhi ninkii ka baqaya in la dilo ama la qafaasho gurigiisa ha iska joogo. waxa sarkaalkaas taladaas ku raacay oo sidaas oo kale ku jawaabay wiilkii uu adeerka u ahaa ee Saalixuddiin al-Ayuubi. markaasay ciidankii go'aankaas adag taageereen oo iyagoo sidoodii u yarbay gaaladii afka saareen. markii ay gaadheen fooda ayay istareen oo waxaa dhex maray dagaal qadhaadh oo gaaladii waa lagu jebiyey iyadoo goobta meydkooda la wadhay oo laga dilay ciidan aad tiradiisu u badan yahay. haddaba Asadudiin markii uu jebiyey kiristaankii iyo masaaridii khaa'imiinta ahayd ee la soo saftay ayuu Iskandariya afka saaray oo gacanta ku dhigay, isagoo gaaladii soo gashay kala soo wareegay hanti badan oo ay muslimiinta markii horeba ka soo boobeen. dabadeedna wuxuu Asadudiin Iskandariya ku reebay ciidan yar oo Saalixuddiin madax ka yahay, isaguna wuxuu ku laabtay dhulka Masar. haddaba intii uu maqnaabaana loo soo dabamaray ciidankii Saalixuddiin haystay oo la go'doomiyey. iyaguna magaalada qalcadeeda ayay dhufays ka dhigteen, way diideen inay isdhiibaan. 3 bilood markii ay go'doomin lagu hayay oo sahaydii ciriiri ku noqotay bayna gorgortan la galeen. markaasuu Asadudiin wuxuu wasiirkii khaa'inka ahaa kula heshiiyey inuu ciidanka go'doominta ka qaado oo ka qaato 50,000 oo diinaar. sidaas bayna ciidankaasi Iskandariya uga soo baxeen iyagoo ku wareejiyey masaaridii kiristaanka hoosta ku wadatay. haddaba bartankii bishii Sabuux wuxuu wasiirkii khaa'inka ahaa gaaladii u oggolaaday inuu sanad walba siinayo 100,000 oo diinaar oo baad ah. kadibna ciidankii Faransiisku dalkoodii ayay ku laabteen, maxaa yeelay Suldaan Nuuraddiin binu Sanki ayaa dhulkii ay Shaam ka qabsadeen dagaal xun ku qaaday oo meel walba ku gebagabeeyey oo halkaas bay u gurmadeen. lacagtaas baadda ahna muslimiinta ayay kula dirirayeen. haddaba habarwacashadii khaliifadii Faadumiyiinta ee lagu magacaabi jiray Caadiid markii la gaadhay sanadkii 564 gaaladii waxay gacanta ku dhigtay dhulkii Masar badankiisa oo waxaa u gacan geliyey wasiirkii khaa'inka ahaa, iyagoo badda oo dhan soo qabsaday. dabadeedna soo weeraray magaalada Qaahira oo xarunta dowladda ahayd. markii arrintii halkaas gaadhay oo caasimadii la go'doomiyey ayuu khaliifadii Faadimiyiintu ee Caadiid u habar wacday boqor Nuuraddiin binu Sanki. wuxuu u diray timihii haweenkiisa wuxuuna ku yidhi iga soo gaadh Faransiiska oo haweenkayga ka badbaadi. wuxuuna ka codsaday inuu soo diro Asadudiin ciidan u wato oo ay la joogaan, isla markaasna uu hantida Masar ka soo xirooto 3 meelood isaga siinayo. kadib haddaba Suldaan Nuuraddiin binu Sanki Masar ayuu u diray ciidan lixaad leh. markaasuu Asadudiin oo Ximis jooga amar ku siiyey inuu Xalab degdeg u soo galo. 1 maalin gudaheed buuna ku soo gaadhay. markaasuu ciidankii lixaadka lahaa u magacaabay, wuxuuna ku daray duqay iyo waxgarad badan iyo saraakiil ciidanka uga hooseeya. wuxuuna ku amray inay Alle dartii u baxaan oo dalkaas islaamka ay shacabkiisa cadowga ka badbaadiyaan. Saalixuddiin saraakiisha la socota ayuu ka mid ahaa oo adeerkii Asadudiin kama uusan hadhi jirin. haddaba ciidankii markii uu Masar cagaha dhigay ayay gaaladii isaga baxeen oo dhulkoodii gadaal ugu laabteen.
ileen way ogaayeen inaanay Masar xoog ku haysan karin oo qaa'im baa soo geliyay wuxuuna u sheegay markii ciidanka Shaam laabtaan inay mar kale Masar ku soo laabtaan oo qabsadaan isagoo u sheegay khaliifadu inuu la safan yahay ciidanka Shaam haddaba shacabkii reer Masar aad ayay ugu farxeen gurmadka Shaam uga yimid waxaana ciidankaas la dejiyay xeryo iyo xarumo diyaarsan waxaana halkaas ku soo booqday waxgaradkii ummadda iyo culimadii oo ciil iyo gumeyn lagu dilay sidoo kale waxa soo booqday boqor caadid oo arrimo sir ah hoos ugu sheegay waxaana ka mid ahaa inuu shirqoor ku dilo wasiirka khaa'inka ah oo dowladda afduubka isaga haysta oo gaalada dabada ku wata wuxuuna go'aansaday inuu fursad la sugo wasiirka laftarkiisii wuxuu galay feejignaan haddaba maalintii dambe hogaamiyihii ciidanka ee Asadudiin ayaa booqasho u aaday qabrigii Imaamu Shaafici oo meeshaas ka dhowaa ayuu wasiirkii xaruntiisii tegay wuxuuna ugu tegay Saalixudiin oo xilka uga hooseeyay markaasuu Saalixudiin amar ku bixiyay in la qabto sidaas ayaana lagu qabtay oo xabsiga ayaa la dhigay haddaba ilaaladiisina way carareen oo waxay qaylo dhaan u geeyeen khaliifadii Caadid oo ay moodayeen inuu badbaadinayo laakiin Caadid wuxuu Asadudiin u diray fariin qarsoodi ah wuxuuna ka codsaday inuu wasiir shaawir madaxiisa u soo diro sidii buuna yeelay oo intuu dilay buu madaxiisii boqorka u diray maalintaas bay reer Masar xoroobeen oo shaydaankii ka raysteen waxayna aad u jeclaadeen oo taageero u muujiyeen amiir Asadudiin oo cadowgaas ka badbaadiyay isaga ayuuna boqorkii xilkii ku wareejiyay oo wasiir ka dhigtay wasiirku wuxuu ahaan jiray ninka dowladda fulinteeda iska leh boqorkuna korka ayuu kala socday oo keliya waa meel alle haddaba wax ka wadaay Asadudiin durbaba waa u geeriyooday oo tii alle ayaa u timid markii uu 2 bilood iyo dhowr maalmood oo keliya talada hayay markaasuu khaliifadii Faadimiyiintu xilkii u magacaabay wiilkii uu adeerka u ahaa ee Saalixudiin bin Yuusuf bin Ayuub waxaana loo bixiyay boqorkii Masar caleemasaar aad u sareeyana waa loo dhigay haddaba Saalixudiin al-Ayuub oo ahaa geesigii kiristaankii soo qamaamayay la galay jihaadkii dhabta ahaa oo ugu dambeyntii ka xoreeyay magaalada barakaysan ee Qudus iyo meelo kale sidaas ayuu ku soo baxay markaas ayuu Saalixudiin wuxuu noqday dayax reer Masar u soo baxay khaliifadii Caadidna waa uu sheeqay oo dadkii waxay qalbi ahaan isu dhiibeen oo jeclaadeen Saalixudiin oo ahaa muumin geesi ah oo haybad alla siiyay haddaba markii uu awoodii Masar Saalixudiin hantay Suldaan Nuuraddiin wuxuu ku amray inuu ka dambeeyo oo isaga ka hoos shaqeeyo oo amaanta u soo diro laakiin Saalixudiin taas waxba kama uusan odhan oo hawshiisa ayuu watay oo isagu ma ahaynin magac iyo sareyn doonaya ee wuxuu doonayay inuu ummadda islaamka badbaadiyo dowladdiina wuu hantiyay oo awoodiisii baa kor aaday oo wuxuu noqday boqorka awood weyn kuwii Shaam maxaa yeelay wuxuu hantay Masar oo ka ciidan iyo calafba badan sidii uu Masar oo dhan u hantayna casharka dambe ayaan ku qaadan doonaa maantana halkaas ayay noogu joogaysaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu